salaamullaahi calaykum asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada kanaalkeena wax ka baro. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad u qiimo badan oo xiiso badan. ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. 9 arrimood oo ardaygu u horseeda inuu imtixaanka ku guuleysto. qodobka koowaad, ardaygu waa inuu toddobaadka imtixaanaadka ku wajahaa niyad wanaagsan. tan micnaheedu waxay tahay in ardaygu uu wanaajiyaa fikirka uu ka qabo ama uu ka haysto imtixaanka, isla markaana uu arkaa imtixaanka inuu yahay waxaan dhib badnayn, kaliya un asaga lagu tijaabinayo. qodobka labaad, ardaygu waa in uu samaystaa jadwal wax akhris oo u gaar ah. inkastoo samaysashada jadwal loo baahan yahay waqti walba uu ardayga ku jiro waxbarashadiisa, haddana waxaa muhiim ah ardayga inuu samaysto jadwal u gaar ah diyaarinta imtixaanaadka. qodobka saddexaad, ardaygu waa in uu ka fikiraa halka iyo meesha uu wax ku diyaarinayo. tan micnaheedu waxay tahay meesha aad wax ku akhrinayso inay ahaato meel jawi degan, buuq la'aan ah oo naftaada ay ku qanacsan tahay. haddii aad jeceshahay kelinimada in aad wax ku diyaariso, naftaada bar. haddii aad jeceshahay in aad dadka wax la akhridana, naftaada bar. isku day in aad beddesho marar badan meesha iyo sida wax loo akhriyo. waxaana la ogaaday in meesha aad wax ku diyaarinaysa ay qayb weyn ka qaadato in aad natiijo sare ka keento imtixaanaadka mise imtixaanka. qodobka afaraad, ardaygu waa inuu helaa waqti uu ku jiro imtixaanada nasiino ku filan iyo hurdo dhammaystiran. inuu ardaygu helaa nasiino iyo hurdo ku filan waxay ka caawinaysaa inuu si fudud u xifdiyo una fahmo macluumaadka imtixaanka. sidoo kale nasiinada iyo hurdada waxay ardaygu ku dhaliyaan ama ay ka dhigaan inuu ahaado mid firfircoon oo diyaar u ah howl iyo waxqabad. qodobka shanaad, ardaygu waa inuu helaa tilmaamo u sahlaya sida ugu fudud ee imtixaanka u wajahayo. tan micnaheedu waxay tahay talada macalinka iyo guud ahaan sida imtixaanadii hore ee la soo maray ayaa u ah dhaxal iyo dhiirigelin uu kaga hortago su'aalaha cusub ee loo diyaarin doono. muraajacada iyo dib u noqoshada ama tilmaamidda meelaha muhiimka ihi waxay ardaygu u tahay dejin iyo helid qayb ka mid ah kalsoonida. qodobka lixaad, ardaygu waa in uu nasiyaa maskaxda, isla markaasna uu waqti tamashlah misna damaashaad ah uu helaa marka uu ka soo baxo imtixaanka. tan micnaheedu waxay tahay saacado wax akhris badan kadib in aad baxdo, isla markaasna hawo cusub qaadato, beeraha nasashada in aad tagto si jirkaaga iyo maskaxdaada ugu diyaariso imtixaanada kale ee kuu dhiman. qodobka toddobaad, ardaygu waa inuu wax akhriyaa waqtiyada munaasabka ah. tan micnaheedu waxay tahay wax akhriska xilli walba ama waqti walba looma baahna, laakiin waxaa muhiim ah inaad ogaato xilliyada iyo waqtiga ugu fiican ee wax la akhriyo. waqtiga ugu wanaagsan wax akhrisku waxaa ka mid ah xilliga salaada subax kadib, xilliga galabtii, habeenkii ilaa 3 saac iyo waqtiyada kaloo la midka ah. qodobka saddeexaad, ardaygu waa inuu qaataa cunno isu dheelitiran. tan micnaheedu waxay tahay waxaa jira cunooyin ay fiican tahay in la cuno xilliyada imtixaanka, waxaana cunooyinkaas ka mid ah qudaarta qaybaheeda kala duwan sida karootada, baybayga, liin macaanta, liin bambeelmada iyo sidoo kale malaayga, kuwaa oo kordhiya fahamka iyo xasuusta ardayga. qodobka 9aad, ugu dambayntii waa inuu ardaygu sameeyaa jimicsi ama sida loo yaqaano exercise. waxaa la isku raacay in haddii ardaygu sameeyo muddo 30 daqiiqo oo jimicsi xagga jirka ah ay ka caawiso inuu si mug leh oo soo jeed fiican ku dheehan yahay u gudagalo akhriska iyo barashada duruusta. salaamullaahi calaykum.